dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. dhegeystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaan diiradda ku saaraynaa xiisadda ka dhexaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa cirka isku sii shareerayay xiisadda labada dal iyadoo xiriirka diblomaasiyadeedna uu sii xumaanayay. Arrintan waxay ka dambeysay kadib markii dowladda Kenya ay qaaday tallaabooyin degdeg ah oo keenay inay dad aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay ka caroodaan. Tallaabooyinkaasi waxaa ugu dambeeyay joojinta diyaaradihii duulimaadka tooska ee Muqdisho iyo Nairobi oo dowladda Kenya ay dib u soo celisay in dadka ka imaanaya Muqdisho ay maraan wajeer dabadeedna meesha lagu baaro kadibna Nairobi ay u sii gudbaan. Dowladda Kenya ayaa tallaabadaasi sheegtay inay u samaysay sababo amni. Hayeeshee war ay dowladda soo saartay ayaa waxay ku tilmaamtay in arrintu ay u muuqato mid siyaasadaysan oo aan wax amniya shaqo ku lahayn. Sidoo kale maalmo ka hor dowladda Kenya waxa ay fiisihii dalka u diiday xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaaliga ee Soomaaliya oo shir uga qaybgali lahaa magaalada Nairobi. arrintaas ayaa dowladda Soomaaliya war ay ka soo saartay waxa ay ku sheegtay in laga wanaagsan isla mar ahaantaasina ay ka xun tahay sida Kenya ay u dhaqmayso. Warbaahinta dalka Kenya waxa ay tabinaysaa in dowladda Kenya ay ka caraysan tahay dacwadii Soomaaliya ay Kenya ka gudbisay ee dhinaca xuduudda badda ee labada wadan, waxaana dacwadaasi oo hadda taala maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland la filayaa in go'aanka madambaysa ay gaarto taa oo midkood noqon doonta in loo xukmiyo Kenya ama Soomaaliya dhulkaas la isku haysto. Professor Liban Hussein Ciise oo ka dhiga jaamacadda Muqdisho xiriirka caalamiga ayaa waxa uu faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha salka ku haya khilaafaadka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya. Jamaal, waxa weeye xiisadda Kenya ee Soomaaliya waxa salka ah arrintii muran maranbiyeedkii Soomaaliya iyo u dhaxeeyay Kenya oo ka bilowday kolkii heshiiskii waagii hore memorandumkii la saxiixay dib ay dowladda Soomaaliya ay u diiday, baarlamaankeedu u diiday, kadibna ay isku dayday in barinka ay ka faa'iideysato, kadibna murankii uu ka dhacay oo madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa kolka la joogay ee dowladda Soomaaliya in murankii wadahadalkii kolkii uu fashilmay oo dhowr jeer ay wada hadleen loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee loo gudbiyey lahay midda ayay ka daba joogtaa oo ay damacsaneed inaanan halkaas la gaarsiinin, sababtoo ah markii si loojiga loo fiiriyo iyo qawaaniinta iyo sida loo fiiriyo wax dukumenti oo xoog badan oo ay keenaysa ma jiraan. walidaalika waxaan isleeyahay taasa asal u ah arrintu kolkay soo dhawaatay hadda wejigii koowaadna Soomaaliya ku guuleysatay, wejigii kalena mataqaanaa saadaashu waxay tusaysaa in xagga Soomaaliya ay noqonayso. marka taa ayaa waxay ka keentay in ay pressure xoog badan oo isdaba yaala inay keento lacalla Soomaalida oo lagu yaqaano maalan ama caatifo lagu yaqaano ama waxyaalahaas oo kale armay dhici kartaa haddaad dhinacyada aad xoojiso oo meelo dhinacyo ah ka gasho armay dowladda Soomaaliya iska bedeshaa mowqifkeeda ay iska bedelaan. marka arrintaasaa u sabab ah waxyaalaha daba jooga hadda samaynaysa. Professor Liban waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinaya sida uu u arko jawaabta ay Soomaaliya ka bixisay markii qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dowladda federaaliga ee Soomaaliya lagu xanibay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi, dabadeedna habeen markii ay meesha bariyeen dib loogu soo celiyey magaalada Muqdisho markii loo diiday fiisaha dalku galka oo dowladda Kenya ay sheegtay in ahayd in marka horeba ay ka soo qaataan safaaradda Kenya ay ku leedahay magaalada Muqdisho, taas oo dowladda Soomaaliya ku noqotay arrin uguba. runtii waxay la tahay ficiladaas waa ficilo runtii tilmaamaysa arrintan wajeer waa dowladdu way ka wada hadleen, afgarad baa laga gaaray. hadday arrimo amni jiri lahaayeenna markaabuu soo bixi lahaa. sida loo controla inta way og yihiin, amisom baa inta joogtaa, waxay rabaan oo delegation way soo diri karaan. marka ma jiro oo arrimo amni ah. hadda diyaaradihii ka waaweynaa ayaa hadda inta direct ah ha noqoto Turkish, waxay doontaa mataqaana ha noqoto diyaarado fara badan baa ka baxa. marka ma aha arrintaas, laakiin waxay ka tahay waa arrimo package haysta waay ficilkan ay u qabanayso. tallaabadii labaadna waxay ahayd in diblomaasiyiintii Soomaaliyeed laxanimo oo la yiraahdo ilaa walaw inay fiisa soo qaadataan oo garoonka lagu sameeyo. midda saddexaad waa midda xawaalaadka oo la isku dayay isla markiiba la qaaday action. intaas waxaa sii dheer oo iyadana sii dheer oo la og yahay xuduudda Soomaaliya marka la eego
intay lasoo galay oo ciidamo ay soo galeen ayaa hantidii Soomaaliyeed ee shirkadihii Soomaaliyeed isgaarsiinta meelahoodii aad wax la khasaare la gaarsiiyay Hormuud iyo Somtel iyo Amtel iyo kulliba waxaasoo dhan marka waa wax baagay iswata oo cadaadis lagu saarayo waxa kale oo muuqata in maamul goboleedyadii iyo xiriir la leeyahay waxaad maqashay in xataa Somaliland xataa waqti loo diyaarinayo waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa waa package lagu cadaadinayo xukuumadda xukuumaddana jawaabta ay ka bixisayna anigu waxaan u arkaa tii horena aad u fiicnayd warqadii hadda ay soo saartayna oo arrimaha ay uga jawaabaysayna waxay la tahay aad bay waxay u ahayd si diblomaasi ah oo dabacsan yani u samaysay lana qofka dhibka dhinaciisa jira isaga fakfakta iyo yani samaynaya laakiin qofka aad oranaysa arrintaada marka waxaa la rabaa in xasilooni lagu dhameeyo yani marka waxay la tahay sida ay u kala duwanayeen dadka ku eedeynaya dawladda Soomaaliya tusaale ahaan marka dalalka carabta qaarkood dhibaato loo geysto Sacuudiga oo kale Soomaaliya waxay inta badan la safartaa Sacuudi Arabiya iyagoo luqadda kula hadlaya dalalka kale ay qabtaan tusaale ahaan Canada oo kale markii sheegtay in arrimaha gudaha dalka Sacuudiga loo daayo arrimaha dalka Sacuudiga laakiin marka ay jawaab dibadda bixinayso wadanka Soomaaliya waxyaabo quseeya ay ka dabacsan tahay midda ay dalalka carabta qaarkood dhibaato marka loo geysto ay ka bixiso arrinta maxaad uga jawaabaysaa ana waxay islahay yani masaalixda ayaa kala duwan hadda arrintan waa arrin oo muran naga dhaxeeyo oo si toos ah murankana qofkii ka soo horjeeda hadduu isxanaajiyo oo kiis iskawaal uu bilaabo oo waxyaalo fara badan uu sameeyo waxa ah midda qaanuuniga ah marka hore laana waa la wada daawanayaa Soomaaliya igad baa joogta oo maalin walbaba waxaa la record gareynayaa wixii dhaca AU-ga joogta Africa jooga waxaasoo dhan waxay tilmaamaysaa marka in tallaabadaada si loo jiro inaad u qaado oo aad tiraahdo saaxiibtinimada waan ilaalinayaa laakiin arrintaas ayaan la siyaasadayn arrintan waa magaciisi waa sida laana wixii kale ee hadda aad qaadayso tallaabo kale marka Soomaaliya wixii hadda loo baahdo inay u qaado si ayar ay u qaado laakiin qolada tan waxay rabaan inay soo dadajiyaan xiriirkii iyo wixii inay marka isla markii jab u yiraahdo si shacabka Soomaaliyeed marka uu dareemo xiriirigaas uu dareemo oo eeda looga saaro xukuumadda dadkeeda looga saaro aadan makiina oo ah qoraa ka faallada arrimaha gobolka kuna sugan wadanka Kenya ayaa waxa uu leeyahay inay jiraan warar warbaahinta dalka Kenya ay qorayaan oo ku aadan in Soomaaliya ay qorsheynayso in ay bedesho ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga gaar ahaan Jubaland dadna lagu bedelo ciidamo kale oo ka socda dalal ay Itoobiya ka mid ka tahay waxaan uu sheegay in taasi sidoo kale ay khilaafaadka labada wadan ay cirka sii geyn karto midda kale ay haddana Kenya ay ka danqanayso waxa weeye Soomaaliya oo riixaysa dawladda Kenya ciidamadeeda inay isaga baxdo gobolka Jubaland oo lagu bedelo afar dawladood kuwaas oo ay kala yihiin dawladda Qatar, Itoobiya, Eritrea arrinkan waa arrin qoran marka sidee baa khilaafaadka labada dawladood lagu xallin karaa waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilowday 1935 buu bilowday 10 sano socday ilaa 45 waa mid ay ku loolanayeen wadii hore gumaysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noodanka marka way ku heshii waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dawladood waxaa habboon intay isku hanjab lahaayeen wuxuuban celinaynaa isliiba Soomaaliya oo toban Soomaali weligeedii joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenya badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay deris baa leeyahay walaalaa leeyahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500,000 oo Kenyaan ay shaqaaleysay oo maaragtay Kenya kaliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah nin walba ninka kale ayuu ku leeyahay oo ku leeyahay garabkiisa ku taagan yahay sidaas loo baahan yahay in la wada hadlo bini'aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa
maadaama ciidamada fara badan ay Kenya ka joogaan gudaha waddanka Soomaaliya ayaa la isweydiin karayaa saameynta amniga gudaha dalka Soomaaliya guud ahaanba gobolka. Waxaa arrintaasi ka warramaya Xuseen Macalin oo madax ka ah Maxadka Hilaal ee diiradda saara arrimaha amniga iyo afkaaraha xagjirnimada. khilaafaadkan labada wadan haddii ay kasii xumaadaan sida ay tahay ama hadda sida ay tahay aysan kasoo wanaagsanaanin dabcan amniga labada dal ama gobolka saameyn ayay ku yeelanaysaa. sidaad og tahay amniga caalamka o dhan waa isku wada xiran yahay, gaar ahaan gobolkan aan ku noolnahay oo dadka soomaalida ah ay wadamo kala duwan ay degaan u wada tahay. haddii aanan amniga oo hadda aanba fiicnaynba uu kasii dari karo haddaysan wada shaqayn iyo isku kalsoonaansho aysan jirin. AMISOM ay ku jiraan ciidamada Kenya ee jooga Soomaaliya. Ka waran haddii khilaafaadka sida hadda uu yahay sida aad sheegtay ama uusan ka wanaagsan sida hadda uu yahay ama uu ka xumaado, caqabad noocee ay ku keeni kartaa hawsha nabadgelyo ilaalinta ay waddanka Soomaaliya ka wadaan? dabcan kalsoonidii ayaa yaraanaysa oo dadka Soomaalida ay ku qabeen dhexdhexaadnimada ciidanka Kenyaanka oo AMISOM ka tirsan. sidaas waxaa dhici karta in shabaab iyo dadka nabadda diidan ama dowladnimada Soomaaliya inay xoogeysato diidan oo dhan ay arrintaasi marka ay ka faa'iidaystaan. waxaa kaloo ay aada ciriiri hawsha u gelinaysaa beesha caalamka oo hawsha AMISOM isku soo duuduuday oo dhaqaale ku bixisa, tababaro ku bixisa, in wada shaqayntii labadii dhinac oo ay doonayeen inay si guud u wada xoojiyaan amniga gobolka, gaar ahaan kan Soomaaliya, iyana caqabad xoogan ayay ku noqonaysaa. dowladda Soomaaliya kaararka oo siyaasadeed oo ay haysato iyana waa kusii yaraanayaan maadaama ay maaragtay qayb kamida dhulka Soomaaliya ay amnigeeda inay sugta ay tahay ciidanka Kenya. marka arrimahan oo isbiirbiirsaday run ahaantii waxaan aniga ujeedaa keliya dowladnimada Soomaaliya dhisideedii oo caqabad xoogan ku timaada, oo haddaanan si degdeg ah intaan loo xallin oo labada dhinac aysan u arkin urgufta la isku hayo in ay waxyaabo ka waaweyn ka dhalan karaan oo ah saameyn dadka naftooda iyo maalkoodiba. maadaama dhowr tallaabo ay dowladda Kenya qaaday ayaa waxaa haddaba shacabka Soomaaliyeed ay u dhigataagayaan tallaabada kale ee xigta ay Kenya qaadi karayso waxa uu noqon karo. waa kan mar kale Aadan Makiin oo arrimahan sharaxaya. tallaabada kale ee laga filan karo hadda waxaa weeye waxaa soo socdaa doorasho ka dhici doonto gobolka Jubbaland ee hadda uu gacanta ku hayo ninka la yiraahdo Axmed Madoobe oo gacan saar lala Kenya, maadaama ciidamada Kenya ay joogaan halkaas. dowladda federaalka Soomaaliya ee Muqdishona aysan doonaynin isla markaana Axmed Madoobena uu ka baxo meesha oo qalqaala loogu jiraa sidii South West oo kale looga saari lahaa odaygii hore Shariif Xasan. ninkan asagana ma la yiraahdo waqtigaada waa dhamaaday. ficilada ay dowladda Kenya ku dhaqaaqayso oo ay doonayso inay uga xanaajiso Soomaaliya ayaa sida uu qabo Professor Liban oo xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho ayaa waxay tahay in labada wadan ay soo horfariistaan dabadeedna ay ka wada hadlaan khilaafaadka ka dhaxeeya iyo sidii Kenya ay Soomaaliya markaasi ugu cadaadin lahayd inay kala soo laabato dacwadda ay Soomaaliya ka geysay dalka Kenya ee muranka dhinaca badaha ka dhaxeeya labada wadan. hadda Soomaalidu inay dareemeen arrintan waa arrin qowmiyadeed, arrintan waa arrin wadani, muxaafid iyo mucaarad ma kala laha. xukuumaddii horena Soomaaliya meel fiican bay geysay, in maxkamadda geysay. xukuumaddaana inaysan ka tanaasulin waa wax weyn. marka waxa ilaahay waa wax lagu wada duuban karo Soomaalida oo dhan mid midaysa oo qowmiyaddii Soomaaliyeed oo dhan meel walba joogtaan midaysa ayay tahay. laakiin waxa muhiim ah kaliya anagoo midaysan yaanan degdegin oo waxaa la rabaa arrintan inaysan ka soo noqon maxkamadda xaggeeda aysan ka soo noqon, laakiin hadba tallaabaday qaado iyadunba ku ceeboobaysa oo ku khasaaraysa. laakiin in midnimada in la ilaaliyo ayaa ugu muhiimsan, midnimada la ilaaliyo. taana hadda ilaa hadda inta muuqata ifafaalaha Soomaalida iyo siyaasiyiinta noocyadooda kala duwanba aad bay yani in arrintan gardarro ay tahay ay u wada dareensan yihiin. tallaabooyinka la qaaday waa dhici kartaa inay qaarkood yaro dhaliilaan dhahaan ay jeclaan lahaayeen in qaadka la joojiyo kan la sameeyo. waxaasoo dhan waxay iska noqonaysaa furuuc, laakiin targetkaaga waa maxkamadda inaysan marnaba aysan soo noqon.
marka waxay rabtaa inaad meel soo wada fariisataan markaad meel wada fariisataan ka wada hadashaan arrinta si loo soo celin lahaa intaas keliya yaa ugu muhiimsan. waxaa kaloo la isweydiin karaa sida aad hore uga dhawaajisay dacwadda badda muranka kala dhexeeya Kenya waxa ay heegeysay 2014 oo dawladda tan ka horeysay ayaa geysay. marka inta wixii ka dambeeyay xiriirkoodu wuu wanaagsanaa oo sida hadda uu yahay uma uusan xumaanin. marar badanna tallaabooyinka Kenya ay qaaday waxay ku soo beegmayeen xilli Soomaaliya ay ka hadashay arrimo shidaal, tusaale ahaan shirkii London ee dawladda Soomaaliya ay ku soo bandhigaysay shidaalka iyo xirmooyinka shidaal ee Soomaaliya oo safiirkii Kenya ay u wacdeen kii Soomaaliya ee Kenya joogana ay yiraahdeen bal dawladda la soo tasho. hadda markii xildhibaanada la xanibayay iyo wasiirada xilli sharciga batroolka Soomaaliya la ansixiyay baarlamaanku ansixiyay ayay ku soo beegantay. marka mal oran kara Kenya waxay ka didsan tahay maxkamadda ka sokow dhaqdhaqaaqa shidaal ee Soomaaliya wado. run ahaantii dhaqdhaqaaqa hadda oo Soomaaliya oo shidaalka la wado yani iyagu Kenya haddii ku doodayaan meeshii zoonkii oo dispute-ka iyo muranka uu ka jirnaa kuma jirto, laakiin waxa ay ka qaylinaysaa hadday Soomaaliya u furanto oo mataqaanaa xag shidaal iyo dawladaha shidaalka daneeya oo energy-ga daneeya ee reer Yurub iyo dawladaha caalamka oo dhan waxay noqonaysaa Soomaaliya meel muhiim jiddan ah. haddii ay ku darsato marka inay ku guuleysato maxkamadiina waxay keenaysaa marka awood iyo garaangal badan ilaana shidaalka kan dawlado fara badan baa ilaashanaya. marka Soomaaliya waxay yeelanaysaa awood fara badan, laakiin hadday dhaqdhaqaaq xaggaas aysan samaynin oo maxkamadda la iska sugo, maxkamadda xataa hadday wax soo saarto waxaa la leeyahay maxkamadda waxaa la samaynayaa fulinteedii ayaa haddana waxay qaadanaysaa waqti. boqolaal waxaa jira go'aamo ay soo saartay oo aan la ogolaan. hadda waxaa kamid ah Ethiopia arrintii Badmi ee ka dhaxaysay Eritrea goormay maxkamadda hore loo soo saaray, laakiin akhiiran ma ogolaanshihii mar dambe uu ahaa. laakiin dhaqdhaqaaqan wuxuu keenayaa haddii meelo badan shidaal laga baaro oo dawladuhu inay dhinacan kalena usoo dhaqaaqaan oo markaa iyagoo haysta sharciyadii maxkamadda caalamiga haysta baaridiina lagu sameeyo, marka waxay noqonaysaa arrintooda arrin soo afjarantay. laakiin arrinta haddaan waxba dhaqdhaqaaq oo shidaala aan ayna jirin, arrintu waxay iska ahaanaysaa xataa hadday maxkamadda soo baxdo waxaa weeye meel ay weli duqduqayn karaan oo ay rajo ka leeyihiin. taa waxay u yara aamusnaayeen saas bay ahayd, laakiin dhaqaaqan waa runta. dhaqaaqan oo shidaalka mar allaale marka ay Soomaaliya bilowday waxay soo jiidanaysaa indhaha caalamka, waana meesha ka dagaalamayso Kenya. waxaa jiray shacab aad u fara badan oo Soomaaliya iyo Kenyaanba isugu jira oo u ololeynayay muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshadana isku dhaafsanayay in ciidamada Kenyaanka ee Soomaaliya jooga waddanka Soomaaliya ay ka baxaan, balse arrintaasi ayaan ahayn mid fudud sida uu qabo Xuseen Macalin. طبعا waxaan dhici karin ma jiraan, laakiin waxa ay muuqataa waxa ka sokeeya caqabado fara badan iyo waqti aad u dheer ay u baahan tahay in ciidan hawl noocaas saaxad la u joogay in uu baxo uu ciidan ka baxo sidaasna cidii bedeli lahaydna hawsheedii la helo. waxaan ognahay in ciidanka Soomaalida ah aysan ilaa hadda ku filnayn in ay amniga dalka iyagu la wareegaan, inkastoo qorshaha la wareegidda awoodda dalka uu yahay qorshaha beesha caalamku ay waayadan dhan ay karkarinaysay, laakiin haddana awooddii oo ciidanka Soomaaliyeed weli diyaar ma aha. marka waxyaabaha jacaylka oo shacbiga ama caadifada labada dhinac jirta kuma aad xiriir aniga say ila tahay ulama laha xaqiiqaadka dhulka yaalla. ciidanka Kenya Soomaaliya waxay soo galeen iyagoo aan ka mid ahayn AMISOM, goor dambe ay ka mid noqdeen ciidanka waddanka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM. sida warbaahinta dalka Kenya qaarkood ay baahinayso, dowladda Soomaaliya waxay doonaysaa in ciidankaasi Kenyaatiga ahi ay ka baxaan deegaanada Jubbaland oo hadda maamulka deegaanadaasi uu khilaafad dowladda Soomaaliya kala dhaxeeyo. marka iyagoo aan AMISOM ahayn haddii ay waddanka Soomaaliya soo galeen hadda iyagoo AMISOM ka tirsan inay si fudud waddanka Soomaaliya uga baxaan, arrintaas macquul ma tahay? waa su'aal aad maaragtay umug weyn, jawaabteedana waxaan isleeyahay daqiiqadii laba kuma filna, laakiin Kenya Soomaaliya markay soo galaysay dana Kenyana ayay usoo gashay. nabadgelyada Soomaaliya uma soo gelin nabadgelyada Kenya iyo arrimo kaleeto iyada xiiseynaysa ay usoo gashay. kadib arrintii la sax oo
loo yeel maaragtay sharciyad iyo mandate oo laisla ogyahay haddana ka bixideedan iyo bedelideeda iyo waxaasoo dhan ciidamada dowladda Kenya damacii waagii ee u timid weli kama dhamaanin saan is leeyahay oo weli waa jira khilaafaadka anaga gudaheena ah waa waxyaabaha sii cakirinaya oo maaragtay in ay dowladahaas shisheeye oo danaha iyagu gaarka naga leh inay arrinta ay ka faa'iidaystaan ay suuragal tahay marka waxaan is leeyahay jawaabta su-aashan waxay ku habboon tahay in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si uu aysan u noqonin annakana la soo saftay ama annakana la soo saftay ciidamada Etoobiyaanka ah waa naqaanaa taariikhdeeda iyo maaragtay sida hadda tahay maanta hadday isbedesho berri isbedeli kartaa marka waxaasoo dhan waxaa ka owla ah sidaan qabo in khilaafka Soomaaliga ah la yareeyo si danaha shisheeye oo noo soo dusi lahaa aan maaragtay kaga siraadno haddaba si loo dhameeyo khilaafaadka labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya oo darisa ayaa waxa uu soo jeedinaya aadan makiinay dhinacyadu ay wada hadlaan isla mar ahaantaasina ficilada dalbadalka kale uu ka xanaajinayo la joojiyo oo ay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada gobolka waxaa lagu xallin karaa wada hadal socda dadkana ma aha mid shalay bilowday 1935 buu bilowday 10 sano socday ilaa 45 waa mid ay kullu lamayeen wadii hore gumaysiga Talyaaniga oo hoosta haystay iyo Ingiriiska oo noodanka marka way ku heshii waayeen xuduudina sida bay ku dhaafeen haddaba labada dawladood waxaa habboon inta isku hanjabi lahaayeen oo tigaan celinaynaa isliiba Soomaaliya oo toban Soomaali weligeed joogtay islii shalay maysan bilaabin way jiraan kuwa sharci darro ah ku jooga Kenya badan baa ka shaqeysa Muqdisho ilaa iyo Hargeysa waxaa loo baahan yahay daris baa leeyahay walaalaa leeyahay intaasoo sanadood ayaa maaragtay weligeed dadku wada noolaa oo la wada ganacsan jiray Soomaalida ilaa 500,000 oo Kenyaan ay shaqaaleysay oo maaragtay Kenya kaliya gudaheeda Kenyana malaayiin Soomaali ah nin walba mid kale ayuu ku leeyahay garabkiisa ku taagan yahay sidaas loo baahan yahay in la wada hadlo bini'aadamnimada xuquuqda la eego kadibna go'aan iyo heshiis lagu wada dhameeyo sidii nabad waarta lagu noolaan lahaa Soomaaliya ayaa dacwad la xiriirta muranbadeedka kala dhaxeeya dalka Kenya waxa ay geysay sanadkii 2014 maxkamadda garsoorka caalamiga ee ICJ ee dalka Holland markaas oo wixii ka dambeeyay dawladda Kenya ay si aad uga soo horjeesatay go'aankaas isla mar ahaantaasina ay isku diideen inay ku qanciso maxkamadda inaysan iyadu xukunkeedu ku jirin inay qaado dacwado noocan oo kala balse dhageysiga labada dhinac oo bilowday kadib ayaa maxkamaddu waxay go'aamisay inay galayso dacwadan isla mar ahaantaasina ay soo gudbistaan waxyaabaha ay dhinacyadu ku doodayaan taa oo dawladda Kenya ay sidoo kale ka carruurtay markii wixii ka dambeeyay Kenya waxa ay Soomaaliya marar badan isku dayday inay ka dhaadhiciso in ay dacwadaasi dib ula soo laabato maadaama muranbadeedka labada dal ka dhaxeeyo ay dawladda Kenya aaminsan tahay haddii looga guulaysto in ay weyn doonto dhowr xirmo oo shidaal la sheegay inay ku jiraan kuwaas oo hadda ay ku dagaalamayaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya gudahanna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan maanta ku soo gabagabeynaya dhageystayaal tan kulan dambe nabadgelyo